dhawaada magaalada Istanbul ee dalka Turkiga maalmihii u dambeysay waxaa ka taagan jahawareer xoogan kadib markii laba wiil oo Soomaaliya ay la goosteen lacag ka badan 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Lacagtaas waxaa lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo dalka Turkiga u tagay tahriib isla markaana doonayay inay u sii gudbaan wadamada kale ee ku yaala qaaradda Yurub. yiraahdo Cabdirashiid Aadan Geelle iyo Xasan Aadan Geelle waa laba wiil oo walaalaha. Cabdirashiid wuxuu ahaa ninka ugu sareeya xafiiskaas ay dhalinyarada Soomaaliyeed lacagta dhigin jireen ee ku yaalay xaafadda Akisraay ee Soomaalidu ay ku badan tahay. wiilka walaalkiisa waxa la yiraahdaa Xasan Aadan isna wuxuu ka yimaaday wadanka Ingiriiska waxaana la rumaysan yahay in xafiiskaas ay labadooduba shirka ku ahaayeen. xafiiskan aan idin sharaxo xafiiskan wuxuu u dhaxeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka raba iyo muqallasiinta dadka qaada ee halkaas geeya. waa la wada imaan jiray lacagta la kala dhigin jiray kadib markuu qofku nabad tago oo Yurub galo ayay soo wici jireen labadan wiil mid kamid ah waxay dhihi jireen waa nabad tagnay ee yarkii ama qofkii muqallaska ahaayna qaaday lacagti ku wareeji. marka xafiiska lacagaha saasa loo dhigin jiray sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee wadanka taga ee caafimaadka u taga ayaa iyana lacagta maadaama akoonna aysan lahayn lacagta dhigin jiray. xafiis marka qaabkaas u shaqeeyo ahaa laakiin marka dhanka dawladda la fiiriyo wuxuu ku diiwaan gashnaa oo ku sharciyeysnaa inuu yahay xafiis cargo ah oo alaabaha u dira qaaradda Yurub iyo sidoo kale Afrika. laakiin shaqadaas kale ee muqallasnimo ay xafiiska ku hoos wadeen. labadan wiil ee walaalaha ayaa hal mar lacagti la goostay. Xasan marka hore Ingiriisku ka yimid oo Ingiriiskiisu isaga laabtay. Cabdirashiid oo ninka ugu weyn xafiiska mas'uulka ka ah isna wuxuu u baxsaday Soomaaliya wuxuu hadda ku sugan yahay magaalada Cabudwaaq halkaas oo la sheegay inuu sameystay ciidamo gaar ah oo ilaala isla markaana lagu wardiyeynayo 4 cabdibile oo ciidana. lacag ka badan 1.5 milyan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay lahaayeen ay la goosteen. waxaa la sheegay in mid kamid ah dhalinyarada tahriibtay ee lacagtooda xafiiskaas ay taalay oo lacag $7,000 ay u taalay kadib markii uu maqlay in nimankii ay goosteen uu wadnuhu istaagay isla markaana uu sidaasi ku geeriyooday. dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku go'doonsan yihiin dalka Turkiga, Greega iyo wadamo kale. lacagtoodina waxaa la fakaday labadaas wiil ee Soomaaliyeed ee la kala yiraahdo Cabdirashiid Aadan Geelle iyo Xasan Aadan Geelle. mid kamid ah wuxuu ku cararay oo ku sugan yahay Cabudwaaq halka midkii kalena uu ku laabtay dalka Ingiriiska. dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaa hantidooda halkaas ku dhacantay isla markaana murugaysan isla markaana go'doon ku ah dalka Turkiga iyo Greega. dhalinyaradan intooda ugu badan Soomaaliya ka tageen marka hore wadanka Turkiga waxay u tageen inay ka sii gudbaan oo qaaradda Yurub ay galaan. bal ka waran oo qiyaas qof hooyadiis iyo familkiisa inta boos u soo gadeen ama inta lacag la heli kara la isugu dardaray haddana lacagtii laga goostay oo dhaxda ku go'doonsan. wiilashaas Soomaaliyeed iyo dhalinyaradaas waxay codsadeen oo dawladda Soomaaliya ku codsadeen in ninkaas Cabudwaaq ku sugan ee lacagta la goostay cadaaladda la horkeeno isla markaana xaqoodii looga soo celiyo.